xubno ka tirsan baarlamaanka Israa'iil ayaa muujiyay walaac ay ka qabaan dhaqdhaqaaqyada militari ee Masar ay ka wado Sinai ayagoo sheegay inay tallaabooyinkaasi dhaafeen xuduudda uu dhigayo heshiiskii nabadeed ee labada dal. Hadalladan ayaa lagu soo bandhigay shir ka dhacay Knessetka oo ciwaankiisu ahaa xadka Israa'iil iyo Masar xaaladda amniga isbedelaysa sida ay sheegtay warbaahinta Zama oo xiganaysa wakaaladda wararka ee GDN ee Israa'iil. ka qaybgalayaashu waxay adkeeyeen baahida loo qabo in laga foojignaado xaalad kasta oo suurtagal ah iyaga oo tilmaamay in horumarada ka socda xadka Masar oo ay ka mid yihiin balaarinta ciidamada iyo casriyeynta hubka ay khatar gelin karaan ammaanka Israa'iil inkastoo ay qireen in iskaashi amni uu ka dhaxayn jiray labadan dal xilliyo gaar ah haddana waxay xuseen in tallaabooyinka qaarkood ee Masar ay mararka qaar ka hor imaan karaan danaha Israa'iil. ilaa iyo hadda wax jawaab rasmi ah kama soo bixin dhanka Masar ee ku aadan hadalladan. taliyihii hore ee ciidanka difaaca Israa'iil IDF Herzi Halevi ayaa horey uga digay awoodda militari iyo hubka casriga ah ee ay haystaan ciidamada Masar. dowladda Soomaaliya ayaa Mareykanka u soo bandhigtay maamul gaar ah oo howleed oo ay ku maamulayaan dekedaha istiraatiijiga ah ee gacanka cadmeed si looga hortago in Washington ay aqoonsato gobolada gooni u goosadka ah ee Somaliland. warqadda uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kuna taariikhaysnayd Maars 16 oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay in Soomaaliya ay Mareykanka u soo bandhigtay hanti istiraatiiji ah oo kor u qaadi karta saameynta Mareykanka ee gobolka hubin karta marin aan hakad lahayn oo militari iyo saadka isla markaana looga hortagayo tartamayaasha shisheeye inay saldhig ka samaystaan marinka istiraatiijiga ah ee gacanka cadmeed. hase yeeshee goobaha la soo bandhigay dekedaha iyo saldhigyada berbera ee Somaliland iyo dekedaha iyo saldhigyada Puntland kama hoos shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya balse Muqdisho waxay u aragtaa dhammaan goobahaas inay ka mid yihiin dhulkeeda qaran. dhinaca kale xukuumadda Somaliland ayaa si kulul uga jawaabtay warqad ay sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u diray Mareykanka taasoo lagu codsanayay in Washington la wareegto maamulka dekedaha berbera iyo Boosaaso si looga hortago aqoonsiga Somaliland. wasiirka warfaafinta Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa sheegay in tallaabada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday ay muujinayso xasilooni darro siyaasadeed iyo dadaal kasta oo lagu horjoogsanayo aqoonsiga Somaliland. hadalladiisa waxaa ka mid ahaa waarin muujinaya in hogaaminta Xasan Sheekh Maxamuud ay tahay mid aan culays qaadi karin khaasatan marka la eego arrimaha Somaliland. markasta oo uu maqlo aqoonsiga Somaliland nooc waali ah ayuu galayaa xasuuso waalida ka haysata heshiiska Somaliland iyo Itoobiya oo gaadhay heer heshiis qarsoodi oo kaas ka sareeyay uu la galo. Netanyahu ayaa soo bandhigay xog uu ku sheegay inay ku gaari doonaan qasa guud ahaanna kula wareegi doonaan. wuxuu tilmaamay inay si cad u doonayaan inay Xamaas hubka dhigto oo hogaamiyaashooda ka baxaan marinka Gaza kuna wareejiyaan Israa'iil ammaanka Gaza taas oo uu ku sheegay inay tahay marxaladda u dambaysa ee heshiis kasta oo ay la galayaan Xamaas. hadalkan ayuu ka jeediyay madal ay ku sugnaayeen inta badan golaha wasiirada Israa'iil. Netanyahu ayaa sidoo kale xusay inay Israa'iil sii wadi doonto dhaqangelinta soo jeedintii madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump taasoo ahayd in Gaza laga faarujiyo Falastiiniyiinta iyo sidoo kale kordhinta cadaadiska ay ku hayaan Xamaas oo ay u marayaan weerarada ay ka geysanayaan Gaza.